niyadda hadda maanta dhalinyarada iyo fahamka iyo wacyiga laga joogo waxaad moodaa gaab fara badan inuu ka jiro si looga baahan yahay marka waajib ma ku tahay waalidka si kooban haddaan mawduuca ugu soo laabanno in ubadka wadani uu ka dhigo ubadka in wadani laga dhigo waxaa ka wada qayb qaadanaya dowladda markaas jirtay waajib ku tahay in mabaadi'dii iyo manaahijtii wadan jacaylka dadka baraysay sida hadda waan u sheegnay diintii baraysa waxaa baraya dastuurka iyo nidaamka dalka loo dejiyay inuu barayo rabaa dadka inuu ku xiraayo marka manaahijta iyo dasaatiirta iyo afkaarta dalka uu leeyahay falsafada dalka uu ku dhisan yahay waa inay ku dhisnaataa dhalinyarada inay barayso dalkooda inay jeclaadaan hada raqam waaxid raqam اثنين waalidku doorka labaadoo noqonaya ama saddexaad waalidkuna saad u sheegtay qayb weyn buu ku leeyahay waa inuu dalkooda dadka baraa laakiin waxaa ka xoog badan wasaa'il iclaamka ama warbaahinta haddaba aan fadhino waxaa waalidka xoog badan ka afdheer waxaa ka xoog badan manaahijta tacliimiga ee waxbarashada iskuulada iyo jaamacadaha ayaa ka xoog badan waxaa saddexayso ka muhiimsan waxaasoo dhan in dadka talada dalka haaya ama hogaanka ah ama dadka aqoonta iyo manaahijta gacanta ku haya wax dhigaya inay tusaale wanaagsan u noqdaan jiilka cusub ee dhalinyarada ah lilasaf waxaa la yiraahdaa ratiga weyn meesha marow yarka oo orod ku maraa haddii jiilka dhalinyarada ah oo runtii aniga aan Soomaaliya hadda waxaan u arkaa inaan rajada ugu wanaagsan aan leenahay xataa wadamada gobolka oo dhan ka rajo fiican nahay laana waxaa noo soo kobcaya jiil dhalinyaro ah oo wax baranaya oo haddana dayaan ay ku jirto tadayun leh oo aan jiilalka hore ka duwan oo thaqaafaadkiisa wadaniga iyo tiisa islaamnimada isku wada wata waa macno weyn oo la gaaray sanadii burburka runtii faa'iidooyin la gaaray kamid tahay laakiin weli waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo in jiilkaas dadka hadda ay fiirsanayaan oo talada haya inay tusaale wanaagsan u noqdaan oo la tuso cadaalad la tuso dhiirigelin in lagu dhiirigelinayo inay wax badan qabtaan